xogayu waa fulin baa la xidhanta annagu waxaan u arkaynaa dambiga xoghayaha iyo qaladka laga galay in lagu dambabasayo shaqaale oo dad aan la teeta lahayn inta meel lagu la soo xidhay la oranayo dhibane waxa ka ah oo la soo xidhay shaqaalihii hebel waxa tahay xildhibaan golaha deegaanka ee degmada Burca waxaad leedahay xogayaha dawladda hoose wax eeda oo arrinka ka leeyahay waxaanu afkiisa ka cadeeyay inuu yiri dad ay ku cadaatay oo xeer ilaalinta u gudbinay oo aan ku daba jirnaaba jira wuxuu noo sheegay dad ay imkadana ku daba taagayeen baa jira halka marka ay marayso Cabdiwaaxid su'aashiis weydiinta le waxa weeye dadka maxaa ka mamnuucay in beedka la soo geliyo oo si lagu ceebeeyo sida kamba loogu ceebeeyay halka loo soo dhigo hadii maanta xogayaa lagu waayaba eeda ay ku soo gudbiyeen oo maxkamadda la keeno lagu waayo ilaa dad baa la hor keenayo sumcadiisi baa la dilo sharaftiisa waa meesha ka dhacday yaa qabad sharaftiisa waxa tiin xildhibaano golo deegaan oo 13 ma isleedahay eedaasi idinka laftigeena idin soo gali karaysa xataa jeelka markii la keenay ay ugu tala galeen iyagoo takiinadaysan dadka dilka geystay criminalka halka lagu xareeyay ku xareeyay xogahan heleeno waxay sheegayaan in arinta loo haysto ay tahay dangood si gaar ah beer ku taala xaafadda October arinta maxaa kala socota muwaadiniin baa jirto oo xeerka dawladaha hoose marka xeerarkeeda ka hadlayso xeerarka qoriyo wad aragtay aduguba in qof kasta oo muwaadin xaq u leeyahay dawladda hoose dhulka helo maadaama xaq loogu leeyahay isha kaliya la wada eegay ay tahay cid kasta oo loo garto inay mudan tahay xilligeedii la siin lahaana ay taagan tahay waa la siin shaqaale iyaguna eedaysan baa jira sidaan xogaha ku heleeno oo iyagu baxsaday arintaas ma jirto imka waxa la leeyahay dhul danguuda waa baxay imkan uu baxay waanu bixi doona laakiin sifada uu ku baxaya waa inay sharci noqotaa waxaad sheegtay in dhulka la bixiyay bulshada ma u sheegi karaysaa xildhibaan cid la siiyay kuwati wacan oo wanaagsan idil ahaantiiba saaxiibada kala duwan ee ku xiran telefishinka MMTV waxaan ahay Cabdiwaaxid Beeldaajo oo ku sugan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaad ku soo dhawaataan wareysi gaar ah oo la yeelan doono xildhibaan Farxaan Cilmi Caalin oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco xildhibaanka waxaynu ka wareysan doonaa arrimihii ugu dambeeyay ee shirka ka taagnaa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer si gaar ah dawladda hoose oo uu kamid yahay xildhibaanada golaha deegaanka ee loo soo doortay xildhibaan waan ku soo dhaweynayaa MMTV kugu soo dhaweynayaa shalay bulshadu waxay ka warheshay iyadoo hanti dhowrka guud ee qaranku xubno ka tirsan dawladda hoose ee Burco oo xidhay oo ugu horeeyo xogayaha dawladda hoose bal arinta maxaa kala socota aad baad mahadsantahay Cabdiwaaxid iyo MMTV runtii hanti dhowraha qaranku wuxuu u madax bannaan yahay inuu baadho meel kasta oo hanti dawladeed oo dakhli iyo ilo dakhli ay ka soo galaan sunnahana kamid ah meel kasta madmadow looga shakiyo inay galaan waa bogaadinaynaa inay shaqeeyaan oo waliba aanay degmada Burco kaliya ku eegaanina ay meelo badan oo runtii u baahan iyaguna in laga galo ay ka galaan laakiin arrinka shalay dhacay markan uu eegaya hanti dhowrka waxaad moodaysaa inay khibrad darro ay ka yara muuqatay waliba si gaar ah waxaan uga sii hadlayaa xogayihii iyo shaqaalihii hanti dhowrku wuxuu sameeyay inuu xogayaha iyo shaqaalahaba uu xafiiskooda ugu yeedho isagoo mu'aamarad uga dhigaya inuu la kulmayo oo uu su'aalo weydiinayo marka ugu horeysa qofka muwaadinka waa eedeysane marka dambigu ku cadaada abu dambiile noqdo markuu u yeeray maxaa dhacay markuu u yeeray halkan baa la yiri fadhiista markay fadhiisteen ka bacdi gaari qabaala laba gaari baa labadiiba runtii la soo taagay sharaftoodii iyo cirdigoodii iyo bulshadii ay matalayeen midnaba iyadoo aan loo turaynin waliba odayaal waaweyn oo ubadka ay dhalan iyaga la leeyihiin ay ku jiraan si sumcad darro ah oo lagu dhexmariyay magaalada taasoo keenaysa inaan qofkan sharaftiisa iyo cirdigiisa midna la ilaalin mar labaadna waxa meesha taala qof eed lagu soo eedeeyay inaan xarig dhibana u ahayn marka hore istifaaci mar labaadka dambe hadii dambiga uu ku eedeysmo ka bacdi la xidho marka shalay tole halka waxa nooga baxday in sifo aan sharci ahayn khalkhalna uu ku jiro loogu talagalay in magaalada la khalkhaliyo dar ilaahay oo baan u khalkhalin kacdoonna la geliyo oo la doonayo bulshada dareenkooda la kiciyo inay dadkay matalayaan si toos loo soo dhaxmariyo
markii aanu la xidhiidhnay ilaamihii ay khusaysay gobol iyo taliye iyo intaba aan la xidhiidhnayna aanay waxa liyo waxay ka ogyihiin aanay tirin ay noo sheegeen golaheega deegaanka iyo maayarkana aan la soo socodsiinin hawshan waxaanu ogaanay markii la qaaday askartoodii ka soo hadhay ayaa nagu wargeliyay in la xidhxidhay goobtii baanu tagnay goobtii markaanu tagnay waxaanu aragnay in laga qaado xitaa gawadhidoodii meeshii yaallay iyagoo gawadhidoodii u yaalla halkii lagaga dhaqaaqay ay ku yimaadeen ay goobta kaga soo dhaqaaqeen isla markaana jeelkii la keenay weliba xataa jeelka markii la keenay ay ugu talagaleen iyagoo takinadaysan dadka dilka geysta criminalka halka lagu xareeyo inay ku xareeyaan taasaa horta ka dhacday cabdiwaaxidow shalay dowladda hoose marka la joogo bal dadku inta badan wax isweydiinayaan saxiixa howlaha ka socda dowladda hoose yaa leh runtii waa su-aal aad u fiican dadkuna su-aasha aadka isku weydiinayaan waa taa xogayuu wuxuu ka mid yahay 3 fulin amba 3 dhadhaar oo ka shaqeeya dowladda hoose saxiixiisu waa mid ka mid ah haddii hanti dhul amba dhaqaale amba noocay doonta ha noqotee dhibbana laga noqdona saxiixu keligii leeyahay maaha saddexduba waa la leeyihiin say doonaanba haw kala lahaadaan waxaa la le maayarka marka laga hadlayo siin haddii dhul la bixinayo haddii laga hadlayo go'aan hadday noqoto baalki intuba waxay noqonaysaa go'aan guddi fulineed oo loo dhan yahay sababta markaa bulshadiisu weydiinaysa cabdiwaaxid waxa weeye sababta raggii hawsha la lahaa ee xafiisyadoodii iyo saxiixyadii la lahaa loo soo xidhay isaga keligii looga soo xidhay ee labadii xafiis kalena ay u shaqeynayaan xooghayaha oo la yaqaan inuu dakhli shaqo ku leeyahayna la leeyahay dhul baad u xidhantay 7 qof ayaa lagu soo eedeeyay oo uu ka mid yahay xooghayo dadka xidhan bal wuxuu badan yahay shaqaale dowladda hoose arinta ayada ka war runtii cabdiwaaxid oo aad baad u mahadsantahay waana su'aalaha iyagu laftirkoodu dareenka gaarka waliba sii dhaliyay xooghayo waa fulin baa la xidhanta annagu waxaan u arkaynaa dembiga xoghayaha iyo qaladka laga galay in lagu dambabasayo shaqaale oo dad aan la teeta lahayn inta meel lagula soo xidhay la odhanayo dhibane waxaa ka ah oo lala soo xidhay shaqaalihii hebel war shaqaale meeluu saxiix ku leeyahay uu dhul ku bixiyaa ma jirtay da waa la siiyaa guddi fulineed baa siisaa laakiin sababta xoghayihii fulinta ahaa ee xafiiskiisu uu furnaa shaqaale loo soo dhinac dhigay ee la doonayay in dembigiisa lagu dambabaso la yidhaa cid baa la xidhan annagu waxaanu qaadan karayna maaha waxaanu doonaynaa xogayuhu waa fulin 3 xafiis oo gobolkaa ku yaalla buu xafiis ka mida leeyahay 3daa xafiis 3duba shaqay wada qabtaan shaqaday wada qabtaan waa tuuhayay haddii aanay raggii shaqadaa la qabtay aanay meeshii oolin sabab nin weyn oo muxtarima oo joon mitira oo runtii weliba dadkii waaweynaa ee ehlu sharafka ahaa dadka maanta xidhxidhaya ee loo soo diray weliba ubadka ay dhaleen ay ka waawen yihiin sababta inta gaadhi qabaala dusha looga saaray suuqaa loo soo dhex mariyey ummaddii ay ugu soo daawasho tagtay iyagii xoghayihii oo weliba xoghayuhuna uu dhibbane u sii yahay maadaama aan la teeta lahayn iyaguna ay dhibbane u yihiin maadaamaanay saxeex wax kaga fuleen oo loo haysto cadi aanu jirin sababta imka aanu ilaa iyo hadda la yaabanahay waa taa hanti dhowrka guud ee qaranka oo hadlay waxa uu sheegay in ay jiraan dad iyagu eedeysanayaal ah oo lagu daba jiro bal dadka ayaa isleeday way ka mid yihiin hanti dhowrku 2 jeer buu hadlay sidaas sheegayso shalay mar baa ingiriiska lagu wareystay saakana waxaan arkay cod laga duubay oo ku hadlay labada jeerba wuxuu yidhi waxaan wadnaa baadhis waxaanu afkiisa ka caddeeyey inuu yidhi dad ay ku caddaatay oonu xeer ilaalinta u gudbinay oo aanu ku daba jirnaabaa jira wuxuu noo sheegay dad ay imkadanna ku daba taagan yihiin baa jira halkaa marka ay marayso cabdiwaaxidow su-aasha isweydiinta le waxaa weeye dadkaa maxaa ka mamnuucay in beydka la soo geliyo oo si lagu ceebeeyo sida kamba loogu ceebeeyey halkaa loo soo dhigo warde haddii qaranka loo wada siman yahay baadhistiisa kuu sheegu afkiisa ka sheegay beejkiisa ha soo geliyo magaciisa ha soo geliyo sumcadda sawirkaa baxay maanta haddii maanta xoghayaa laguba waayeba eedda ay ku soo gudbiyeen oo maxkamadaa la keeno lagu waayo ilaan dad baa la hor keenayo sumcaddiisii baa la dilo sharaftiisi waa meesha ka dhacday yaa qaba sharaftiisi marka haddii marka dadka ay kala mudnaanayaan
oo la leeyahay dadna waxaanu ka ilaalinaynaa in magacooda iyo bulshadu ay aragto dadna marka ugu horeeyaan wallpaperka soo dhigaynaa waxaan ku xayeysiisanaa page-keega mid aanu qaadan karayna ma tanu doonayna maanta aan doonayna in laga wada hadlaano waa taa waraanba dadku way u sinaanayaan oo cadaaladdu way wada helayaan ama haddii cid gaar loo jeedo oo si gaar ah waxaan loogu sii wado xogeeyaa waanu arkaynaa dee sifada loola dhaqmayo markaan aanu kala hadlayo weliba dee sifadan deegaankiisa iyo dadkiisiba lagula caragsaday ee lagu soo hormariyey annagu waxaan u arkaynaa in la xiniya taabanayo oo la kicinayo oo waxay yihiin la tusay bulshada uu ka soo jeeda laakiin waxaanu leenahay waridinkii xukuumaddiina la iska kiin horkeen madaxweynuhu uu shaqaynaya madaxweynuhu 3 ballanqaad uu sameeyay way fuleen oo ay kow ka tahay inuu naftiisa dulmiga iyo ka ilaaliyo oo aan isagu cadaalad darro sameeynin inuu dalkii ictiraaf u keenay iyo inuu dalka meel kasto ay la gelaysaba horumarkiisa iyo sinaantiisaba uu isagu ka shaqeynayo war wuxuu madaxweynuhu naftiisa ka dhaariyay baa la doonayaa maanta dadkii ka hooseeyay inay kula kacaan ay doonayeen inay ku kiciyaan war idinkiyo madaxweynaha dad baa jira madaxweynaha hoostiisa ka qaraabanayo dadkan doonayeen inay kiciyaan bulshada waxaan leenahay haw kicina xogahan helayno waxay sheegayaan in arinta loo haysto ay tahay dangood si gaar ah beer ku taala xaafadda October arinta maxaa kala socotaa runtii saad sheegayso waa dhulka danta guudna Burco waxay kala simantahay degmooyinka la midka sifada uu ku baxaana waa sifo sharciya oo dawladda hoose mas'uulka maayirkeedii ku xigeenkii xogayaha fulinta loo dhigay ayaa dhulkii danta guud ee mas'uulka dhulka danta guud sifo kasta oo sharciya uu ku baxay xaq baa loogu leeyahay inuu ku baxo waa imka waxa la leeyahay dhul dan guud baa baxay imkan uu baxay waanu bixi doona laakiin sifada uu ku baxaya waa inay sharci noqotaa marka dhulka danta guud ee degmo kasta oo maanta Soomaaliland kamida laga jaray ee la bixiyay waxaanu garan laanay waxa Burco loo soo bartilmaameedsanayo ee loo leeyay Burco dan guud bay bixisay kan bay bixisay warde 1 milyan dhul la kala siisanayo iyo dhul $100,000 la kala siisanayaaba magaalooyinka waaweyn anagu xeersan ta lagu bixiyo cid ku wada hadasho iyo cid lagala hadlay mid toona maanan arag hadii degmadan Burco loogu talagalay in si gaar ah loo eedeeyo oo waliba mas'uuliyiinta ka soo jeeda sumcad dil ay ku wado waxaan u dul qaadan karaynaa ma bulshadana kacdoon la doonimayno xaaladan imka lagu sugan yahay ee xaaladoodu ay adag tahay ee waqtiga abaareed lagu jirana in bulshada la taabto oo faragelin lagu sameeyo oo dhaqan aanay hore u arag loola yimaadeen doonimayno waxaad sheegtay in dhulka la bixiyay bulshada ma u sheegi karaysaa xildhibaan cid la siiyay dhul hadii la bixinayo ee Cabdiwaaxid oo mar walba waxaan ku sheegayaa sharci dhul waxa ka mas'uul xildhibaan mas'uul kama shaqaalana mas'uul kama go'aan guddi fulineed bay ku baxaan waxaanay ku baxaan cid kasta oo duruufteeda loo arko in dhulka loo siin karo ADB-yada maanta magaalada ku yaala daqaar waqtigii maayiradii naga horeeyay la dajiyo la siiyay way jiraan dad maalin walba dan yara oo aan magaalada xoba ku lahayn oo yimaado baa jiro dhul doonaya muwaadiniin baa jirto oo xeerka dawladaha hoose marka xeerarkeeda ka hadlayso xeerarka qoriyo waad aragtay aduguba in qof kasta oo muwaadin xaq u leeyahay dawladda hoose dhul ka helo maadaama xaq loogu leeyahay isha kaliya la wada eegay ay tahay cid kasta oo loo garto inay mudan tahay xilligeedii la siin lahaana ay taagan tahay waa la siinaya shaqaale iyaguna eedaysan baa jira sidaan xogaha ku helayno oo iyagu baxsaday arintaas ma jirtaa runtii sida aan ku sheegayo magaalada waxay gashadeen bogobagando waxa la galiya caga jugleyn waa laga nixiyay bulshadii maanta xataa shaqaalihii shaqeynayba inta lagu soo dhaxay baa la yiri idina waad xidhantiin in kala aan xidhxidhaynaana way jirtay waana loo soo socda warde nidaamka dawladnimadu nidaam la isku qagiliya ma cid baxsatay oo shaqadeedii ka tagtay ma jirto laakiin caga jugleyntan iyo qabaalkan mar walba la soo hormarinayo tasaaka waa la keenay xogayihii inta la soo qaaday iyadoo sidii aan sumcadiisa loo ilaalinayno ciidamadii dacaladii uga wada taagan yihiin oo moodaysa inuu dambiile yahay oo qaranka dambi weyn ka galay isagoo eedaysana oo afarta koona askari dacalkiisa ka taagantay ayaa dal soo galay maxkamadii hadana magaxumo iyo kicin iyo bagandho laga fidinayo gobolka Togdheer iyo population ka matala waanay ahayn way haadeeyo waxa tiin xildhibaano golo deegaan oo 13 ma isleedahay eedaas idinka laftigeena wadi soo gali karaysa runtii horta iyo dambiile waa kala duwan yahay mar walba labadaas inay kala baxsanaadaan xildhibaanku
dee sida loo soo egmaday waa sharci dejiye sharci dejiyahana hadda wuxuu egmadaa fulinta marka laga hadlayo hawl socodsiinta cidda wada waa fulinta sida muwaadiniinta loo siiyay xildhibaanka waa loo siin karaa dhul iyagoo dee fulintaasi u saxeexaya dee waa loo siin karaa cid u diidaysaana ma jirto haddii la leeyahay dee dhul baa laydi siiyey laydinku eedaynayaayo dhulkaa laydi siiyey baa sharci darraa dee dhul ay ummad ka boobeen oo ay intay qaateen halkeedii ugu tegeen maahe waa dhul sifo sharciya dee lagu siiyey oo saxeexeedii leh haddiiba ay qaateen marka haddii eedda taa ka duwan ay soo gelayso oo dee lagu hayo amba faldambiyeedyo iyagu gacmaha kula jireen dee amba howlo kaloo da iyaga u gaari waa meesheeda laakiin faldambiyeed kale oo fulin oo aanu gacmaha kula jirna dee midna ma jiro waxaa tahay xildhibaan golaha deegaanka ee degmada Burco waxaad leedahay xogayaha dawladda hoose wax eeda oo arrinka ka leeyahay ma jirto anigu eediisa difaaci maayo wuu eedaysmi karaa waa eedaysane laakiin eedaysane sababta loo soo jeebeeyey aan iyadoon maxkamad waaran iyo xeer ilaalintoona la marinin oo gobolkii aan war ka haynin oo taliyihii qaybto aan war ka haynin ummadii shacabku matalay inta lala carigsado la soo hormariyo oo la yiraahdo inta labadii kalena halka lagaga mariyo war waa lama ooyaan oo maanta xogayaha waxa loo soo marnaya sababta maanta hadii maayirka amba ku xigeen la taaban lahaa waxa looga baqay inuu kacdo gobolka ka dhaco sababta isaga imka loo soo ataagay waxa meelaa waa cid u kacdaade ma jirto marka waxaan u cadaynaynaa oo aanu leenahay hanti dhowraha amba dadka cadaalad u sameeyo cadaaladda ha la wada maro ama de keligii ahaan maayo dhibane waxaanu isagu ku koobnayn waxaan intaa ku soo gabagabeynayaa wareysigii dhinacyada badan taabanayay aan la yeeshay xildhibaan Farxaan Cilmi Caalin Cabdi Waaxid Beeldaaje MMTV Burco